kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal halkani waa telefishinka caalamiga Rise TV xaruntiisa dhexe ee magaalada Muqdisho waxaad ku soo dhawaataan warka habeen Rise TV anigoo Xaawo Cabdikariin Xilkaas ayaa la diyaara qodobada aad ku daawan doontaan waxa kamid ah xukuumadda Soomaaliya oo ku dhawaaqday inay abaabulayso kacdoon lagu la dagaalamayo musuqmaasuqa ciidamada Itoobiya horle oo lagu wareejiyay degmada Doolow ee gobolka Gedo gudoomiyihii hore ee golaha shacabka oo madaxweyne lafta gareen ugu baaqay inuu san shacabkiisa barakicin ciidamada ammaanka oo howlgal lagu soo qabtay rag hubaysan ka sameeyay xaafad ka tirsan magaalada Muqdisho xuska 20ka December oo ah maalintii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliyeed oo maanta lagu qabtay magaalada Muqdisho qodobadaasi iyo kuwa kale iyo hadba waxay nagu soo kordhayaad ku daawan doontaan ee u diyaar garooba isku soo noqosho wanaagsan daawadayaal sida hordhaca warkayaga aad ku daawateen ba xukuumadda Soomaaliya oo abaabulaysa kacdoon lagu la dagaalamayo musuqmaasuqa ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya ayaa sheegay in sida ugu dhaqsiyaha badan ay bilaabayaan ciribtirka musuqmaasuqa infrastructure-ka oo tayadu aad uga xumaato jid baa la dhisayaa laba bari haduu maro roob doo eber buu noqonaya maxaa jira musuqi baa galay marka wax kasto la sameeyo tayada uu ka qaadaya eber buu noqonaya hadii la dhisayo kan tayada eber baa laga dhigay waxaan u baahanahay marka go'aan iyo dagaal iyo ole iyo kacdoon musuqa ka soo horjeeda hada kacdoon waxaan abaabulaynaa shabaab ka soo horjeeda Soomaaliya kacdoon musuq la dagaalana kacdoon qabyaalad la dagaalana inaan sameeyno marka sumcaddii dawladnimada ayaa aad u dhimanaysa waxa dhimanaysa haybadii qaanuunka iyo dawladnimada dhan ba eber noqonay marka cidi kama haybaysanayso hay'adda ee dawladda waxa haybad laga haybaysanay ma aha marka dhibaatooyinka uu keena ay kamid tahay dawladdan ama xukuumaddan shabaab cadawga ugu xiga ay la diriri doonto waa musuq hadii ilaahay raaxo way naga go'an tahay musuq inaan la dirirno mana aaminsaniba runtii dalkan in talaabo la qaadi karo hadii aan musuq la diririn ciidamada Itoobiya horle oo lagu wareejiyay degmada Doolow ee gobolka Gedo howlgalka midowga Afrika ee ADMIS ayaa isbedel lagu sameeyay ciidamada Itoobiyaanka ee ku sugnaa deegaanada gobolka Gedo sida qodobkan ay ku eegayso wariyana Fartoon Cali Cabdi waxa isbedel lagu sameeyay ciidamada Itoobiya ee kamid ah howlgalka midowga Afrika ee ADMIS kuwaas oo ku sugnaa sanadihii la soo dhaafay garoonka diyaaradaha degmada Doolow ee gobolka Gedo ciidamo fara badan oo kamid ah kuwa Itoobiya ayaa lagu wareejiyay garoonka Doolow halka dalkooda dib loogu celiyay kuwii horey u joogay waxaana munaasabada lagu bedelay ciidamada ku sugnaa taliyaha nabad sugidda gobolka Gedo dhawaan loo magacaabay Jenaraal Jamaal Xasan Sare taliyaha ayaa ciidamada uga mahadceliyay sida ay uga qayb qaateen amniga garoonka isagoona kuwa cusub ku soo dhaweeyay degmada sheegayana in si weyn uga qayb qaataan ammaanka guud ee garoonka iyo degmada intaba taliyaha ayaa sidoo kale sheegay in ay wada shaqayn dhow wada yeelan doonaan ciidamada Itoobiya kuwa nabad sugidda gobolka Gedo si amniga guud ee gobolka loogu wada shaqeeyo sidoo kalena loola dagaalamo al-shabaab degmada Doolow ee gobolka Gedo ayaa waxa maalmihii la soo dhaafay si weyn looga dareemayay dhaqdhaqaaqyo sidaasadeed kadib markii ay halkaasi tageen wasiirkii hore ee amniga Jubbaland Cabdirashiid Xasan Cabdinuur iyo senator Fartaag oo kamid ah xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya gudoomiyihii hore ee golaha shacabka oo madaxweyne lafta gareen uga digay inuu san barakicin shacabkiisa Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa ka digay cawaaqib xumada ka dhalan karta hadii madaxweyne lafta gareen oo ku adkaysto muddo kororsiga sida qodobkani uu ku eegayo wariyana Cabdirashiid Sandheere gudoomiyihii hore ee golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya qaybna ka ah xildhibaanada golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa sheegay in lagama maarmaan ay tahay in la sameeyo dib u heshiisiin dhexmarta siyaasiyiinta iyo beelaha ay waxgaradka ka soo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya gudoomiyihii hore golaha shacabka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayuu waxa uu walaac ka muujiyay xaaladda siyaasadeed ee xilligan ka taagan koonfur galbeed Soomaaliya asigoona sheegay in loo baahan yahay in dadka koonfur galbeed
ee nabadda u istaagaan islamarkaana siyaasiyiinta kasoo jeeda deegaanka balse aanan wax xilal haynin iyo madaxweyne cabdicasiis laftagareen oo muddo xileedkiisu dhammaaday ee isfaham iyo dib u heshiisiin la dhex mariyo. dib u heshiisiinta koonfur galbeed iyo siyaasiyiinta iyo cabdicasiis laftagareen dhex mareysa ayaa horey waxaa ugu dhawaaqay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe oo maalmihii tagay ku sugnaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay, wuxuuna kulamo kala duwan halkaas gudoomiye Sheekh Aadan Madoobe kula qaatay siyaasiyiinta iyo waxgaradka iyo nabadoonnada kasoo jeeda koonfur galbeed Soomaaliya. cabdicasiis laftagareen ayaa baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed waxa ay ugu dareen muddo hal sano ah, asigoo sheegay in loo baahan yahay in doorashada koonfur galbeed dhawaan la dardargelin doono. laftagareen ayaa ku doodaya in madaxweyneedkiisu uu hal sano ugu dhiman yahay isla markaana baarlamaanka koonfur galbeed ee si sharci ugu dareen. siyaasiyiin waxgarad ku shiray Muqdisho ayaa sidoo kale waxa ay laftagareen ku eedeeyeen in caburin iyo cagajugleen uu ku hayo siyaasiyiinta, iyagoona ku eedeeyay in siyaasiyiinta kasoo jeeda xilal dowladana hore ugu soo qabtay aysan tegi karin Baydhabo oo ciidamo usoo dhoobay garoonka. cabdicasiis laftagareen ayaa xilligan waxa uu ku doodayaa in koonfur galbeed qeybo kamid ah ee dagaalo ay kula jiraan al-shabaab balse xilliga doorashada ay dhaceyso ilaa iyo hadda uusan cadeynin. munaasabad weyn oo lagu xuseeyay sanad guuradii xilka markii uu la wareegay cabdicasiis laftagareen ayaa xalay waxaa lagu qabtay magaalada Baydhabo iyadoo mas'uuliyiin kala duwan ee dowladda federaalka ay halkaas uga qayb galeen. gudoomiyihii hore ee baarlamaanka Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan ayaa waxa uu ka codsaday waxgaradka in loo baahan yahay inay kala dhexdhexaadiyaan siyaasiyiinta iyo cabdicasiis laftagareen. Maxamed Mursal oo xiriir wanaagsan oo kala dhaxeeya laftagareen ayaa qayb waxa uu ka ahaa siyaasiyiinta xildhibaanimada u tartamay isla markaana kursi ka soo helay magaalada Baydhabo. Maxamed Mursal ayaa sheegay in loo baahan yahay in cabdicasiis laftagareen deegaanada koonfur galbeed uu ka abuurin qalalaase iyo barakac hor leh. wuxuuna Maxamed Mursal sheegay in Baydhabo xilligan ay ka taagan tahay qalqal iyo amni darro, dadkana waxa uu ugu baaqay in nabadda ay ka qayb qaataan. dhawaan ayaa safar shaqo magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool iyo qaybo kamid ah magaalada Baydhabo waxa uu ku tagay gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Aadan Madoobe, asigoona siyaasiyiinta iyo laftagareen sheegay inuu kala dhaxgali doono. wuxuuna gudoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Madoobe sheegay in loo baahan yahay dib u heshiisiin iyo wadajir in si wadajir loogu shaqeeyo amniga magaalada Baydhabo. ciidamada ammaanka oo howlgal lagu soo qabtay rag hubeysan ka sameeyay xaafad ka tirsan magaalada Muqdisho. ciidamada booliska oo howlgaladani ka fuliyay xaafadaha ka tirsan degmada Dharkiinley waxayna gacanta ku soo dhigeen rag hubeysan. faahfaahinno dheeraad ah ayaa kasoo baxaya howlgal qorsheysan oo ay xalay ciidamada booliska Soomaaliyeed ka sameeyeen degmada Dharkiinley ee gobolka Banaadir, kaasi oo lagu xaqiijinayay ammaanka degmadaasi. ciidamada ayaa gacanta ku soo dhigay rag burcad ah oo ku hubeysnaa mindiyo iyo mootooyin ay wateen inta uu socday howlgalkani ka dhacay degmada Dharkiinley. taliyaha saldhigga galbeedka oo la hadlay warbaahinta ayaa ka warbixiyay howlgalkani, wuxuuna sheegay in raggani soo qabteen xilli ay dhac u geysanayeen dad shacab ah. hadda kuwa gacanta lagu hayo 3 habeen ayaan kusoo guuleysanay inaan soo qabanno meel la yiraahdo iga dabageey ayaa intooda badan kasoo qabanay, waxayna ahaayeen nimanka saacad kasta tooreyda dadka la dhaca oo moobiladana ka dhaca, ayuu yiri taliye Jimcaale. sidoo kale wuxuu tilmaamay inay u sii gudbin doonaan hay'adaha ku shaqo leh arrintaani, gaar ahaan maxkamadda si looga qaado tallaabo adag oo sharciga waafaqsan. saldhigga waa qabte, maxkamaddana waa la geeyaa, annaga waan soo gudbinaynaa, ayuu mar kale hadalkiisa sii raaciyay. dhankiisa gudoomiyaha degmada Dharkiinley Yuusuf Xundubey oo ka hadlay goobta lagu soo bandhigay raggani burcada ah ayaa digniin adag u diray maleeshiyaadka mootooyinka bajaajta, wuxuuna faray inay iska hubiyaan dadka ay ka kireysanayaan mootooyinkooda. nimanka tuugada ah ee la hayo waxay isugu jiraan kuwa ka gacan siiyay dhinaca mootooyinka iyo cadaymihii oo lagu hayo. waad u jeedin shacabka mootooyinka leh, waxaan uga digaynaa inay ka foorjignaadaan kana fiirsadaan dadka ay mootooyinkooda u dhiibanayaan, ayuu yiri gudoomiye Xundubey. dhinaca kale ciidamada dowladda ee howlgalka sameeyay ayaa sidoo kale gacanta ku soo dhigay nin looga shakisan yahay inuu ka dambeeyay dil xalay isla Dharkiinley ka dhacay, kaasi oo loo geystay marxuun Axmed Faarax Kaariyo oo ka shaqaynayay nootaanyo ku taala halkaasi. taliska galbeedka ayaa sheegay inay gacanta ku hayaan nin tuhmane ah isla markaana ay haatan ku hayaan baaritaan ku aadan dhacdadaasi.
maalmihii u dambeeyay ciidamada booliska iyo kuwa nabad sugidda ayaa sare u qaaday howlgallada lagu sugayo amniga ee ka socda magaalada caasimadda ah ee Muqdisho. Xuska 20 Diseembar oo ah maalintii la aasaasay ciidanka booliska Soomaaliyeed oo maanta lagu qabtay Muqdisho. maanta oo kale 1943 ayaa didibada loo taagay ciidanka booliska Soomaaliyeed sida warbixintan uu ku soo koobayo wariyeena Faysal Cabdi Faarax. 20 Diseembar oo ku beegan maanta ayaa waxaa loo dabaaldegayaa 79 guuradii ka soo wareegatay markii didibada loo taagay ciidamada booliska Soomaaliyeed iyadoona ay jiraan munaasabado kala duwan oo maalinta qiimaha badan lagu xusayo. 20 Diseembar waa astaan ka mid ah maalmaha qaran ee loo dabaaldegayo xusida dhaxalgalka ah ama xusuusta dhaxalka ah ee ummadda gaar ahaan aasaaska ciidamada booliska oo kamid ah qaybaha ciidamada ee xilka uu ka saaran yahay difaaca dadka iyo dalka isla markaana door wax ku ool ah ka qaata dhalinta miraha xurriyadda aan harsanayno. sanadkii 1943 ayay ahayd markii la unkay dhismaha ciidan booliis ah oo Soomaaliyeed xilligaas oo loo arkayay in ay ka mid yihiin midka ugu faca weyn isla markaana laga maarmaan u ah aasaaska dhismaha dawladda Soomaaliyeed oo wax la wadaagta wadamada caalamka. waxa dhab ah inay jiraan ciidamo Soomaaliyeed oo u baahan in la xuso doorkooda isla markaana soo shaqeeyay kana soo shaqeeyay xurriyadda ka hor gaar ahaan waqtiyadii ay jireen maamulada gumeystayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga ee kala qaybiyay geyiga Soomaaliya. xilliyadii gumeystaha markii laga soo bilaabo 1910 ilaa 1940 1909 ilaa 1940 gumeystayaasha Ingiriiska iyo Talyaaniga ayaa aasaasay ciidamo Soomaaliyeed iyaga oo sidoo kale ahaa kuwa qayb ka ahaa ciidamadaasi sugidda ammaanka iyo sidoo kale xalinta dhibaatooyinka ka dhasha iyo khilaafadyada dhanka isqabsiga beelaha. ciidamada booliska Soomaaliyeed waa hay'adda ugu sareysa ee fulinta sharciga madaniga ah waxaana ay xubin firfircoon oo xiriir shaqo dhab ah la wadaagaan ururada caalamiga ah ee booliska Soomaaliyeed ee Interpolka. xuska sanadkan ee ku soo beegantay 79 guuradii ka soo wareegatay markii la aasaasay ciidamada booliska Soomaaliya waxa ay ka turjumaysaa aasaaska ciidamada booliska oo ah hooyada ugu faca weyn ee ciidamada dalka waxaana sharciga Soomaaliyeed xilligan ka muuqata sida ay ugu qanacsan yihiin qaabka ay u socdaan howlaha ciidamada iyo sidoo kale dadaalada kale ay ka qaybta yihiin horumarka dalka. boolisku waa cududda labaad oo ay ku faanaan bulshadu waxayna dadaal ugu jiraan ka falcelinta iyo soo celinta amniga sidaas darteedna waxay u baahan yihiin in loo howlgeliyo sidii loogu tayeyn lahaa isla markaana loo heli lahaa agab iyo qalab ciidankan ay u heli lahaayeen si ay u sugaan amniga iyo in la siiyo tababaro aad u sareeya. dhanka kale ciidamada booliska oo inta badan ah wehelka shacabka ayaana waxa ay dhankooda u baahan yihiin in markaasi laga caawiyo arrimo dhowr ah iyadoo sidoo kale ay jirto in ay haboon tahay in sharciga Soomaaliyeed ay ciidamadan kala shaqeeyaan soo celinta xasiloonida dalka iyo raadinta nidaamka guud oo horseedaya kala dambeyn. ciidamada booliska Soomaaliyeed oo iyagu inta badan xilalka ay u kala sareeyaan saraakiil xigeen alifle dabley ayaana waxa markaasi jirta in markaasi loo rajeynayo sanadkan sanadkiisa kale in ay ku gaaraan horumar iyo barwaaqo waxaana jiri doona munaasabado kala duwan oo ay ka qayb galayaan mas'uuliyiinta ugu sareysa dawladda federaalka Soomaaliya kuwaas oo la qaybsan doona maalintan 20 Diseembar oo ku beegan 79 guuradii ka soo wareegatay markii didibada loo taagay ciidamada Soomaaliyeed. hagaag daawadayaal warkii habeenood kala socoteen telefishinka Rays waa naga intaan warkiis xog kulmi doona waxaan kaga tagayaa sidaas iyo nabadgelyo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.